soo dhawaada inta wadaniyiinta ah wadanka jecel Soomaalinimada jecel dawladnimada jecel guusha jecel soo dhawaada meel allaala meesha joogtaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada insha Allah waan la ahay maalmahan dadkii muwaadiniinta ahaa wadanka jeclaa Soomaalinimada ku weyneed guusha Soomaaliya jeclaa horumarka jeclaa waan la ahay soo dhawaada insha Allah Soomaaliya meel allaala meesha joogto Ilaahay dartiis ayaa idin jeclaay soo dhawaada waa askarigii maskiinka ahaa wadaniyada ka muuqatay mar walba inuu wadankiisa horumar jeclaa soo dhawaada insha Allah ta'ala ciidankana ma sha Allah meel allaala meesha joogaan madaxda ciidanka kulligiina waa idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada insha Allah waayo adduunka waa laga tagayaa waxa la tagayaa meeshii Ilaahay noogu talagalay marka inta fuleyda ah cabsanayso oo Allah subhanahu wa ta'ala aan ku kalsooneen waxba yeena soo dhawaanin laakiin inta muwaadiniinta ah wadanka jecel horumarka wadanka jecel guulaha jecel insha Allah waxaan rajaynayaa inay soo dhawaadaan aan wada hadalno waayo maanta Ilaahay baana abuurtay Allah qaaliqa adduunyada keenay Allah raasiqa ana irsaaqo Allah maaliga ana milkiyo Allahaas ayaa adduunyada iska leh ما شاء الله Soomaaliyeed meel allaala meesha joogtaan awalan adduunyada waa laga tagayaa mid lagu waarayo ma ahan balse laakiin waxaan arkaa maanta bulshadii inay adduunyada jeclaatay aakhirada hilmaantay war aakhirada aan xasuusano qabriga aan xasuusano maanta caafimaadka aan qabno bari lama qabaayo dadka aan fahansaneen maanta nolosha adduunyo kaliya fahansan waxaan ka codsanayaa nolol waxa ugu fiican midda aakhiro nimaan aakhiro ogeyn adduunyo wax uma tarto aad iyo aad Soomaaliya soo dhawaada alxamdulillaah alladhi khalaqa aadam bighayri bashar wa khalaqa Ciisa biduni dhakar wa nawara ash-shamsa wal qamar وجعل الجنة الثواب لمن شكر وجعل النار عقابا لمن كفر ما شاء الله ما أنت أدونك لقد تغايو دتك هميقود كوهايو آخرده المانسن أيان إنان هادلو لجعل هاي ما أنت جعيلك الدنيا دو وحبا مترو جعيلك آخرو أيا وحترو ما أنت هاد الصعد كاس عن صعدو إلهي سبحانه وتعالى أبودي سواء انت fiirsanayso iyo inta maqli doontana kulligooda waa isku mid maanta nolosha adduunyo cid la siiyay amba cid ku waaraysa ma jirto balse wax walba waxa muhiim ah in la fahmo adduunyada midkee baa leh adduunka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh dadka nolosha xun faa'iido u maleeyaan waxaan isdhihi lahaa nolol waxa ugu fiican midda Allah subhanahu wa ta'ala looga cabsado runtana la sheego wadankana lagu jeclaado إلهي سبحانه وتعالى وحوليه سورة الفاتحة طبعا يتضبجر أيا لقى أخريا أي سور نقنقتا واي وحلوت المامي 7 من المثاني والقرآن العظيم وحان ألجي إذا ما أنت أنا رسول لقينا أيدين لها اللايي بل سعد وحان ارتاقنا هاي مدحوينه كونفور قلبيت سوماليا مدني عبد العزيز حسن محمد لفتقرين ما شاء الله
أولا إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله الله نوافجيه إن سو سعنو هالكاس سو قارنو هالكاس طبي الله كيال إن سو قارنو الله نسيي الله هاس يا أبو ديس إسكاله ما شاء الله أولا وحايدين ليه سومالية إن للسامحو قلبك الاسكفرو ودن جعيلك لموجيو هرمارك ودنك لموجيو وفائداتك ما أنت الدنيا دي إلهي إنه كيني دولة نمذا ومهم marka adduunka waxa ugu xun ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka aanan adeecinin oo wadankana inuu dhibaateeyo oo asigana aan isfahmaynin oo walaal qabtana aan lahayn adduunyada taas baa ugu xun walaalayaal annaga adduunkana laguma keenin inaan dhibaato suubino adduunkan waxa la noo keenay inaan faa'iidaad ku soo ziyaadino alla ka cabsigana aan badino maanta waxaan arkaa dadkii oo runta ka gambanayo beentana u dhawaanayo balse dad baa beenta dad ku taageera dadna runta ayay dad ku taageeraan waxaan marqaati ka kaceynaa maanta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxa madaxweyne ka ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen marka inta ciladaysan oo xumaha la wareegto waxaan dhihi lahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsada waayo maanta naftiina meel ay ku sugan tahay ma ogidin geeridiina ma sheegi kartaan caafimaadkiina intuu gaarayo ma sheegi kartaan marka noloshiina ha naqato mid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga baqa runtana lagu sheega maanta waxaan ognahay magaalada Baydhabo oo aniga aan ku suganahay hadeertaan aan ka soo hadlaayo buundooyin qurux badan ayaa lagu dhisay wasaarado badan ayaa lagu dhisay oo wasaaradda qorsheynta ugu horeyso hadeertaan ii muuqato quruxda badan ma sha Allah si habsimo leh loo dhisay shalay markii la dhisayay intaan la dhisin ka hor reera ayaa deganaa marka maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Ilaahay awoodiis ay ahayd in la dhiso balse maamulka koonfur galbeed wuxuu qabtay ay ka mid tahay wadooyin ayaa la dhisay qurux badan oo magaalada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan wadanka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan Baydhabo Jannaay dhaxdeeda laamiyo qurux badan ayaa la dhisay ilaa hadda dhismihii ku socdo balse runta waxaan maqli jiray runaan la sheegin maahine ratida meerka raad qurxoon marka Allah subxaanahu wa ta'ala aan ka cabsano mideeda kale waxa halkaas u soo istaagay ma ahan inaan ku dheeraado mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen hoolaha la haayo inta aan sheegay in ka badan ayaa muuqato oo loo wada jeedaa marka Allah subxaanahu wa ta'ala in laga cabsado runta la sheego way wanaagsan tahay marka halkaas waxaan u soo istaagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saddexda ciidan kale inaan halka ka baraarujiyo aan la hadlo أولاً أننا إلهي سبحانه وتعالى أيانا دورتي أو نو دورتي إنان عيدن نهاي أو ودن كاس أمني جيسا أنسقنو عيدن كميل ألا لميشي جوغان وحان كعد سنة يا إني الله سبحانه وتعالى كعب صدان أي ودن كرونتا كشيغان أي أهانين كبو خبيالة كو دخمو أو مرولبو كشاقيو والدنيا ده يهرمارك ودنك يقولها ودنك يشرفت ودنك ميشي كجرتو ما أنت سيد أن أجنها وحن لنا هي عدو ليراهدوا الشباب ضد ما أنت الشباب كنا كعب صدا مسؤولين تينا رلاعيا مرك أولا إلهي سبحانه وتعالى إن كعب ستان إن وح شيكتان ضد بهنتين وحا إنه شيكتان قال الله تعالى قال رسول الله وايو رلاعين وحبا مترتو بل سوحا فائدة markaad nooga sheekaysid qaal Allah ta'ala ama qaal rasuulullah annaga waa ku farxaynaa waxbana waa ka faa'iideynaa laakiin markuu hadalkaaga naqdo ina wax dhaleecaysid amba waxa aflagaadaysid taasi hormar ma ahan guul ma ahan waxaan ula jeedaa dad waxa jiro oo aan asxaab nahay oo baraha bulshadana igaga xiran oo i fiirsadaan inkastoo aanan xuseynin
وناق إلهي سبحانه وتعالى وحوليه هي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون وأنا ذا وحي وحطر تاقفك مؤمن كاه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون وأنا ذا وحي وحطر تاقفك مؤمن كاه روح عدوس المؤمن إهين وأنا وحبك مترت ولا علي المانت إنا وناق شيقنو هرمارك شيقنو قولها ودنك شيقنو عدو أنك أتاق كنا هاي أسيقنا النقوة إنان كشيكينو أيا شرف موياني إنان دليعين إيو مددالو كراست أنقلو فرديسانو وحاكا في عن إنان رونت شيقي كرنو oo Allah subhanahu wa ta'ala aan ka xabsan karno oo aan naqan karno dad dareemi kara danaha dalka iyo guusha dalka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed ma sha Allah awalan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh maanta waxaan ku faraxsanahay beejkayga inta ku xiran wadaniyiinta ah oo aanan ku jirin mid qabyaalada ka shaqeeya amba xumaan soo qora ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodiisa way taas annaga awoodeena ma ahan marka mideeda kale waxa idin sheegayaa maanta beri dambo alla ka cabsiga waa muhiim illa ay ajisada ka iimaanayso alla ka cabsiga waa muhiim in lis caawiyana waa muhiim maanta maatada dhibaataysan annaga ay garab nooga baahan yihiin shacabka ee dadka taajiriinta ah dhaqaalaha haasta ay garab uga baahan yihiin balse nimcadii Ilaahay na siiyay ayaa maanta annaga aan qarinay waxaan sheegnaa nimco oo ummad kale Ilaahay siiyay ayaan sheegnaa awalan aan sheegno wadankan quruxda badan oo Ilaahay na siiyay aan iimaanka ku qabno dalkeena inaan wanaagiisa sheegno wadan shisheeye inaad amaantid waxa kaaga fadli badan wadankaaga qaaliga ah dahabka ah daymanka ah inaad amaantid ayaa kaaga fadli badan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay waxa adduunyada loo keenay annaga nabiga kaleey salaatu wasalaamna wuxuu inoo sheegay adduunyada faa'iidaadka laga helo marka labadaba anagoo isku darsanayno oo Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsanayno oo guulaha wadanka aan ka shaqeynayno ma ahan inaan dhinacna u leexano waay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay suurada la magac baxday wal casri taasi kaligeeda ayaa maanta ku filan ayaa leeyahay يعني مركي اللي أخريه والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر مركي قرآن كإنتي سكلا لغرية بصورة دان كليه ما أنت روح بني آدم كأه أيضا كليه هدوك عمل فلو وناك شيغو أو حق كل رقمه تاس كليه أياكو فلان مرك إلهي سبحانه وتعالى هدنا وحونا ليه ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين متكابا كهذا الوناكسن ننكو لها إلهي كعبس وحان أقنها ما أنت الدنيا بري وآخره ضدبا ما أنت الدنيا دي جعل وآخره ذي المانسن بس كو حسابتا سوى البؤن ولاو سوى الدنيا وجوك مرون بعد كتاقيسا maalinkaad ka tagtidna waxa loo baahan yahay waxa adiga hormarsatay inaad ka qaadatid waayo wadankan maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa nagu maneestay waxyaabo badan faa'iidaad badan meelal badan oo la dhisay oo wanaagsan ayaa jiraan marka intaas ninka sheegi waaysan oo sheego yaani wadanka dhibaato ayaa ka jirto wadanka rafaad ayaa ka jiro ma sha Allah madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka waxa muhiim ah inaan runta sheegi karno inaan Ilaahay ka cabsani karno marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliya ha noolaato mar walba guulaha Soomaaliya inaan ka sheekeyno waay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay tahaadu tahabu oo kama qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam
وحسكوا ديي واسجعلاني ساني هرقب أياي هاي ما شاء الله بل ساسة تهاي نام بلشدة أن لو ذا هذا الكوناكسن وأن جعل هاي واي هذا الكاس إله سبحانه وتعالى أياي كيني وايو مخل كدقاس أن مخلاي إله سبحانه وتعالى أياي سيي أركتذا إن دهاس أن وحكو أركا إله سبحانه وتعالى أياي سيي neeftaas habadaas quruxda badan aan qaadanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa i siiyey xibnahayga oo 360 xibnood ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa i siiyey intaasoo dhan waxay igaga baahan yihiin inaan kaga shukriyo aan dhaho alxamdulilah ilaahu subxaanahu ilaahu adiga ayaa mahad iskale waayo la in shakartum la aziidakum ayuu ilaahay yiri waayo nimcooyinka ilaahayna siiyey lama koobi karo maanta haddana la dhihi lahaa ka waran dhagaha ijaarkooda waa 1,000 shilin oo shilin Soomaaliya indhaha ijaarkooda waa 1,000 shilin shilin Soomaaliya neefta ijaarkeeda waa 1,000 shilin shilin Soomaaliya socodka la soconaayo ijaarkeeda waa 1,000 shilin hadii la helaa ka war balse wax ma fahamno runta inaan sheegnana ilaahay ayaa nagu jecel beenta inaan ka dheeraanana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nagu jecel marka insha Allah tacaala dawladnimada aan ka shaqeyno horumarka wadanka aan ka shaqeyno guulaha wadanka aan ka shaqeyno yaanan naqanin kuwa wadankooda dhibaateeya oo xumaan iyo ceeb la taagan yaanan naqanin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inaga caroonayaa ruux walbana waxa la sheegaa wanaagiisa ayaa la sheegaa maan xumaantiisa lama sheego marka adduunyada waxa ugu fool xun ruuxa bini'aadinka ah aan wanaaga fahmi karin oo xumahana jeebka ku qaato waxaan dhihi lahaa ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso wax ka fiican ma leh ruuxa bini'aadinka oo dhiho ilaahay ka cabso wax ka fiican ma leh maanta waxaan arkaa ummadii ilaahay ka cabso culeys ayay ku tahay war walaalow ilaahay ka cabso culeys ma ahan waayo inaad wanaaga sheegtid culeys ma ahan inaad guulaha wadanka aad ka sheekaysid culeys ma ahan inaad maanta horumarka wadanka ka muuqdo aad ka sheekaysid culeys ma ahan marka Soomaaliya waxaan jeclahay insha Allah tacaala Soomaaliya mid ah oo horumarkeeda muuqdo oo Soomaaliya isjeceshahay maanta nolosha adduunyo waxa ugu fiican ruuxii wadankiisa jeclaada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jeclaanaya dadka wadanka naceebka u qabo ayaa inaan la hadla rabaa xanacina wadanka jeclaada insha Allah tacaala waayo sharaf waxa maanta noo ah alxamdulilah allihii dariiska noo geliyey ciidan naga dhigay oo inaan run sheegnana ummadda hortooda noo soo istaajiyey allahaas ayaa mahad iska leh waxaan halkaan salaan uga marinayaa madaxda Soomaaliyeed meel allaale meeshay ku kala sugan yihiin halkaan ayaa salaan uga marinayaa balse ciidanka waa loo baahan yahay wacyigelin in la wacyigeliyo amba wanaaga looga sheekeeyo horumarka wadanka looga sheekeeyo guulaha wadanka looga sheekeeyo waayo muddo 32 sano ah waxaan soo daashaday qabyaalad ayaana soo daashatay maanta waxaan taaganahay xilligii qabyaaladda aan ka bixi lahayn aan istaagi lahayn wadadii wanaaga ah iyo wadadii horumarka iyo wadadii guusha waqtigan istaagi lahayn ayaan maraynaa balse dad baa indhaha istira aanan runta sheegi karin Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay ragga runta sheego wanaaga sheego horumarka wadanka sheego guulaha wadanka sheego maanta haddaan dhaho waan gaajaysanahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan leeyahay waxaan dhaqanayaa qof ilaahay iimaanka ka qaaday waan dharganahay waan nimcaysanahay barwaaqo iyo bashbash ayaan haysanaa walaalayaal ilaahay caafimaad adoo ku siiyey horta hadaad gaajo sheegtid waad khasaartay waad hoogtay nin baa waxa la yiri oo gacmaha ka go'an oo lugaha ka go'an oo fadhiya oo indhool ah oo fadhiya dhahaya alxamdulillaah yacni marka horta wixii aan gafay shaydaan xaqiisa ay ka ahaatay wixii aan saxayn ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa ay ka ahaatay nin caalim ana ma ihi marba hadda ka hor aan maqlay inuu nabi ciise ahaa calayhi salaam inuu ahaa ayaan u malaynayaa marka ninkii oo gacmaha ka go'naa lugaha ka go'naa indhaha la'aa oo dhahayo alxamdulillaah
ayuu arkay markaasuu wuxuu yidhi warniyahow gacmaha ayaa ka go'on tahay lugaha ayaa ka go'on tahay aragga ayaa la'dahay intaa fadhisaaye maxaad alxamdulilah u leedahay maxaa ilaahay kuugu nimceeyey noo sheeg nimcada ilaahay kuugu nimceeyey wuxuu yidhi lisaanan daakiran carab aan alla ku soo xuso oo aan ku dhaho alxamdulilaah iyo akhli aan ku soo xasuusta allaha isiiye ayaa mahad iska leh marka waxaa loo baahan yahay maanta bini'aadinka inay noqdaan lisaanan daakiran iyo akhli ilaahay subxaanahu watacaala lagu soo xasuusta inay helaan waayo horumarka iyo guushana waxay ku jirtaa markaan ilaahay subxaanahu watacaala soo xasuusanno ayaa la hormarayaa ama guusha la hortagayaa waxaan ula jeedaa dadka xumaanta ka sheekeeyo amba wanaagga difiro ayaa inaan la hadla rabaa adduunka meel allaala meeshay ka joogaan cidday rabta ha ahaadaan soomaali waa isku mid maanta ninkii geed talaala annaga dhan ayuu noo talaalay ninkii hal guri dhiso annaga dhan ayuu inoo dhisay marka yaanan la fikirin fikirka qaldanna yuusan naqanin dowladnimada iyo idinka gelin inaad afkaar qaldan adeegsataan marka halkan waxaan ka wacyigelinayaa ciidanka meel allaala meeshay joogaan ha naqato hadafkeena wadaniyad ha naqdo hadafkeena qabiilka carar ha naqdo qabiil wax faa'iide ah ma lahan waan aragnay guusha qabiil uu leeyahay waa aragnay dhibaatada qabiilka uu leeyahay waa aragnay dhowr iyo 30 sano ayaa qabiil rafaadkiisa aan soo aragnay dad baa ku dhintay dad baa ku baaba'ay horumarkii waddankii ayaa laga hormari waayey meel unbaa taagnayn balse maanta waxaa noo muuqata guulihii horumarkii sharaftii gobonnimadii soomaaliyeed ayaa inoo muuqata marka inta aan arkaynin ayaan dhihi lahaa ha laysla arko soomaaliya ha noolaato inaan afkeena ka soo bixinno intiinaan ifiirsanayso iyo inta ifiirsan doonto waxaa idinka codsanayaa ii soo qora soomaaliya ha noolaato ii soo qora walaalayaal soomaaliya ha noolaato idinkoo mahadsan soomaaliya ha noolaato inta soomaalinimada jecel oo waddanka jecel oo guusha waddanka jecel oo horumarka waddanka jecel marka halkan waxaan ka salaamayaa kale madaxweynihii 9aad mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ilaahay dartiis aan u jeclahay aan hilmaami karin lama hilmaamaan waa la dhiman karaa kaliya bini'aadinka runta ma jecla maanta laakiin runta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay ummadda runta sheegta mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii 9aad lama hilmaamaan waan ku salaamayaa waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku leeyahay meel allaala meeshaa joogtid ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan marka waxaan halkan mar labaad aan ka sii ammaanayaa madaxweynihii 9aad mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yacni sida sharafta badan qiimaha badan oo u caawiyey masaakiintii xoolaha deeqda ariga ah oo u gaarsiiyey iyo ciidanka soomaaliyeed deeqda oo asiga soo gaarsiiyey sida baraha bulshada aan ka maqlay saasay tahayne inta aan ka maqlay ma aha inta aan ka arkayaaba ugu filan inuu wiligiisa caawin doono waaba mid maskaxdeedu ku jirta wax qof ii sheegay iska dhaaf inuu wiligiis caawin doono qofna xaasid ahayn oo waddankaas wanaag ku imaaday wanaagna oga baxay oo haddana dib wanaag loo u wadi doono taas maskaxdeedu unbaa ii sheegayso cidna ma warsanay marka maasha allah madaxweynihii 9aad mudane maxamed cabdulaahi farmaajo salaan kash iyo laab ah oo la socoto ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid wanaagsan ayaa halkaas kuu soo marinaya waxaan halkan ka sii salaamayaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud howl culus ayaad haysaa ilaahay garabkaaga ha galo balse maanta
madaxweynihii sagaalaad oo hal mar madaxweyne soo noqday maadaama shacabkii u ogolaadeen inay qasri u dhisaan adigoo laba mar madaxweyne noqotay laba qasri in lagu dhiso waa inaad shaqaysataa farmaajo shacabka dhaqaale ma siinin ciidanka dhaqaalo oo laaluusha ma siinin anigaan soo hadlaayo oo ku qoran wacyigelinta ciidanka wuxuu dhaqaale isii ma jirto balse ilaahay dartiis ayaan u jeclahay nin walbana wuxuu shaqaysta ayuu qaataa waddanka intuu nala joogay farxad iyo wanaag iyo qosol ayuu nagula joogay markuu naga tagayna farxad iyo wanaag iyo qosol ayaan u haynaa maantana shaqada adiga ayaa iska leh diyaar ayaan u nahay inaan kula shaqayno inaan waddankaas cadowga argagixisada al-shabaab aan ka difaacno aan isku dhigno xabadaha diyaar ayaan u nahay waxaan kaa codsanayaa adigana inaad shacabka kasbatid inaad ciidanka hormarisid mar walbo waayo nin walbo wuxuu hormariyo ayaa wanaagooda sheega marka ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkaaga ha galo allah kuu fududeeyo hoosha mideeda kale halkaan waxaan ka salaamayaa ra'iisul wasaare xamse ayaan halkaan ka salaamayaa salaantaas oo ka timid qalbigayga wadaniyad ku dheehan tahay dal jaceyl ku dheehan tahay horumarka waddanka jecel oo maanta aanan jeclaanaynin wax waddankayga dhibaateeya cidday doonta ha ahaato uma dulqaadanaya cid waddankayga dhibaataynayso mar walbana halkaas waxaan la taaganahay runta layguma baranin been waxaanan arkin weligayga kama sheekaynin sheyga aniga indhahayga saaro unbaan sheegaa aniga wax la iiga sheekeeyey ma qaato hebel waxaa saas waa haddii lay dhaho ma qaato waxaan ka soo hadlaa waxaa indhahayga saara insha allahu tacaalaa mudane ra'iisul wasaare waxaan kuu rajaynayaa guul iyo gobonnimo iyo horumarka waddanka inaad ka shaqayn doontid insha allahu tacaalaa soomaaliya kugu faraxsan waddankiioo kugu faraxsan ciidankiioo kugu faraxsan horumarka waddanka guulaha waddanka oo annagana idinku ammaani doono insha allah inaad la imaan doontid ayaan kaa rajaynayaa insha allahu tacaalaa marna waxaa tahay ra'iisul wasaarihii ummadda soomaaliyeed marna waxaa tahay abtigeey marka insha allahu tacaalaa ilaahay garabkaaga ha galo guul iyo gobonnimo ayaan ku leeyahay abti macaan ma ahan maanta soomaaliya xilligii been la sheegi lahaa waa laga tagay xilligii runta la sheegi lahaa waxaan dareensanahay maanta dadka runta sheego dad xunoo ataag ku ah ayaa jira laakiin aniga dareeska uma qaadanin inaan noolaado dunidaas aan iska kor joogo dareeskaas waxaan u qaatay alla subxaanahu wa tacaala anoo ka cabsanaayo oo runta sheegaayo amba dagaal aan ku jiro furan aan ku jiro amba goobahayga aan joogo gurigayga inaan runta ku dhinto aanan been ku dhimanin marka bulshada waxaan jeclahaa iyagana inay runta ciidanka kala shaqeeyaan ee cadowga argagixisada ah al-shabaabka ah arxanlaawayaasha ah inaan ka difaacno waddanka diyaar ayaa u nahay bulshada soomaaliyeedna inay nala shaqeeyaan diyaar ha u noqdaan insha allahu tacaala maanta faa'iidada ugu horreyso aan u baahannahay waddankeena waa inaan argagixisada ka baabi'inaa faa'iido nooga horreysa ma jirto waddankaas oo argagixisa laga waayey faa'iido ka horreysa ma jirto waayo sida aan ogahay waxaan dareemayaa inaan shaqadii diyaar u nahay oo mar walbana argagixisada inaan waddankaas ka ilaalino amba aan ka difaacno amba aan ka baabi'ino inuu ciidanka diyaar u yahay ayaa idiin sheegayaa marka ummadda soomaaliyeed meel allaala meeshaa joogtaan waxaan rajaynayaa inaad nagu farxi doontaan annaga waa idinku faraxsannahay waxaad tihiin walaalaheenna waxaad tihiin waalidiinteenna waxaad tihiin ehelkeenna waxaad tihiin qaraabadeenna mar walba waxaan jeclahay soomaaliya meel allaala meeshay joogtay anigana aaminsanahay inay isla dhasheen ayna kala maarmin taasina waa hadalka runta ah markii laga saaro dhinac xumaanta ah sida qabyaaladda iyo qurunka iyo gudaafadda dadku ku dhaqmaan markii laga reebo markii runta laga hadlaayo waddankaas waxaa iska leh ninka waddaniga ah marka insha allahu tacaala meel allaale meeshaa joogtaan soomaaliya waxaa idin leeyahay ha idiin wacnaato casar galab wanaagsan waa waqti oo haddeertaan oo habeenkii noo soo socdo
waayo waxaa ognahay maanta maalin ayay ahayd wax yar kadibna habeen ayay noqon kartaa taasna waxaa keeni kara ilaahay subxaanahu wa tacaala cid ka bedeli karta ma leh habeenkani ilaahay baa keena maalintani ilaahay baa keena marka saas aawgeed waxaa loo baahan yahay inaan annagana dad dhimanaya inaan naqanno runta aan ka sheekayno guusha aan ka sheekayno insha allahu tacaala waayo nolosha adduunya waxa wanaagsan adoo run sheegaysid adduunyada ka tag walaal macaan adigoo been sheegaysid ha ka tagin mar walba ku dadaal inaad raganimadaada muujisid oo waddankaaga aad jeclaatid dowladnimada aad jeclaatid oo geesinimo aad u taagnaatid aadan fulay naqanin insha allahu tacaala naf walbana waqtigeeda ayay dhimanaysaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guul iyo gobonnimo ayaa idin leeyahay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى خير بدن إذن جينا يا كلون كان يكلون كفي عن أنت عن كل مدوم إن شاء الله تعالى ودن كان نجا يا أسكاله عن كوض شقينه يعني لهن عيدا كودن كأيها أسكاله شعبي عيدا بودن كوان وضلينا إن شاء الله تعالى cadowgana inaan isku sheegno aan wixii xun aan iska qabanno wixii wanaaga aan isku sheegno waa waxaan looga baahan yahay insha Allah taala soo dhawaada meel allaale meesha joogtaan farxad ayaa idin haayaa quluub idin jecel waay walaalkiin oo ilaahay dartiis idin jecel Soomaali meel allaale meesha joogto soo dhawaada walaalayaal runtan ayaan laga cabsanin runta iyo rabbigaba laga ma leexdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay ummadda runta sheegto wuxuu necab yahay kuwa beenlowga ah wadanka beenta ka sheegaan xumaha ka sheekeeyo baahida ka sheekeeyo dhibaatada ka sheekeeyo annaga isku filan annaga is caawin karna aan is caawino insha Allah taala aan dhaqaale isku caawino aan hadal isku caawino aan gacmaha isku caawino aan iswaanino waxa isku sheegno insha Allah taala Soomaaliya ha noolaato